السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة inta aynaan bilaabin mowduuca ka hor adiga oo tixgelinaya waqtiga ku baxay diyaarinta muuqaalkan iyo soo gudbintiisa fadlan subscribe dheh kanaalka. Macluumaadkeena way heli kartaa cid kasta oo diyaar ah in lacag ku bixiso. Ma xaqiiqo jirta mise waa khiyaali aad ismoodsiisay inay xogtaada kugu jirto shabakadaha internetka ay gaar ku tahay? Haddii aad fiidiyogan daawanayso waxaa hubaal ah inaad ka mid tahay dadka isticmaala shabakadaha internetka. waxaad akoonno kala duwan ka isticmaashaa baraha bulshada oo aad kala xidhiidho asxaabtaada iyo heladaada kala jooga daafaha caalamka, taasoo laga yaabo inay wada hadallada qaarkood ay yihiin sir idin gaar ah, iyo sidoo kale application aad ku isticmaasho moobilkaaga. haddii aad u haysato inaad ku tirtiri karto dhaqdhaqaaqaaga aad ka samaysay gudaha shabakada internetka, inaad xidho software-ka ama website-ka aad isticmaalayso kaliya waad ismoodsiisay. waayo taariikhda ama history-ga website-yada iyo shabakadaha aad booqatay waxay ku kaydsan yihiin serfarada baraha iyo shabakadaha aad isticmaasho sida Google iyo Facebook. shabakadahaasi waxay ogaan karaan wada sheekaysi kasta oo aad samaysay. applications-ka aad isticmaasho xataa waxay si fudud ku heli karaan nambarada kugu jira taleefankaaga gacanta. waxa kale oo ay heli karaan wax kasta oo kamarada moobilkaagu qabato ama uu duubo mikrofoonka la socda qalabka aad isticmaalayso. waxaasoo dhami waxay dhacayaan markaad isla sidaa u aqbasho shuruudaha iyo heshiisyada lagu weydiinayo marka u horeysa ee aad isticmaalayso moobilkaaga ama shabakada internetka, taasoo badanka inaan akhriyin waxa ku qoran. weli ma dhacday inay si kadis ah kaaga soo horbaxaan xayeysiisyo waxyaabo aad u baahan tahay ama aad badanka ka raadiso internetka? weli ma dhacday inaad ku aragtid markaad furto safxadda hore ee YouTube-ka muuqaalada aadka u xiisayso ee aad daawato mar walba? haddaba waxay isweydiin mudan sidee waxani ku dhacayaan. shirkadaha bixiya adeegyada internetka ma oga waxyaabaha aad baadho oo kaliya taa. waxa kale oo ay ogyihiin da'daada, meesha aad ku nooshahay, jinsiyadaada waxay tahay, siyaasadda dhanka taageersan tahay iyo xog kasta oo internetku qayb ka ahaa. sidaa aawadeed waxay kuu soo jeedinayaan ama ay kuu soo bandhigayaan xayeysiisyo ku salaysan warbixinta ay ka hayaan. waa inaad ku baraarugsanaataa inaanay macluumaadkaagu ku eekin shabakadaha aad isticmaasho oo kaliya taa, ee waxaa jirta cid ina basaasaysa oo og macluumaadkeena mar walba. waxay daaha ka qaaday warbixin lagu soo bandhigay barta internetka ee loo yaqaano WikiLeaks in hay'adda dambi baadhista CIA-da Mareykanku ay basaasaan dadka oo dhan waddanka ay doonaan ha joogaani. waxay awoodaa inay la socoto oo ay ururiso macluumaadka cid kasta oo adduunka ku nool oo isticmaala shabakada internetka ama ka ag dhow qof isticmaala internetka. sidoo kale burcadda kombiyuutarada ama hackerska ayaa iyaguna xada macluumaadkaasi si ay uga iibiyaan cid kasta oo u baahata, iyaguna ay uga faa'iidaan lacag aad u badan. haddii aad la yaabtay macluumaadkani, waxyaabo kale oo dheeraad ah ayaa jira. maanta Mareykanka in la iibin karo macluumaadka iyo warbixinada laga hayo dadka adeegsada internetka wuxuu noqonayaa mid sharci ah oo laga iibinayo cid kasta oo lacag bixisa, cidda doontaba ha ahaato, sida ay doontana ha u isticmaasho. waxa kale oo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump si kama dambaysa u saxeexay in meesha laga saaro waxa loo yaqaano privacy and policy, oo ah in qofka aan la bixin karin macluumaadkiisa khaaska ah. taasoo macnaheedu yahay in shirkadaha bixiya internet service providersku ay xaq u leeyihiin inay ka iibiyaan macluumaadka hay'adaha third party networks oo ah gacan saddexaad oo aan ahayn iyaga iyo macaamiishooda, iyagoo aan wax idan ah weydiisan macaamilka. waxaa laga yaabaa inaanad dhag u dhigin, ihtimaam badanna aanad siin, laakiin waxaad ogaataa in xogtaas loo adeegsan karo siyaabo khaldan. fadlan saduuqa faaladan ugu reeb wixii kugu cusbaa macluumaadkan una sii gudba asxaabtaada. laga yaabaa inuu jiro qof mowduucan aad ugu baahan. si aad ula socoto muuqaalada dambe ee aanu soo gelin doono, fadlan subscribe saar.